Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Warbixinteena maanta waxaan ku eegaynaa caabuqa coronavirus oo ah mid dunida ku sii fidaya, gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyay oo qaaradda Yurub ku sii fidayay. Haddaba dalal badan oo ka tirsan qaaradda Yurub ayaa shaaciyay in markii ugu horeysay uu gaadhay caabuqa corona. Dhammaan kiisaskan waxaa laga xiriirinayaa inuu sabab u yahay Talyaaniga oo xanuunsan uu si weyn ugu faafay. Wadamada Austria, Croatia iyo Switzerland ayaa sheegay in dadka laga helay cudurka ee dadkooda ku sugan ahaayeen kuwa ka yimid Talyaaniga, sidoo kalena qaarkood ay ka yimaadeen Algeria oo ka tirsan qaaradda Afrika. Dhinaca kale, qofkii caabuqa corona gaarsiiyay qaaradda Latin America oo ah muwaadin reer Brazil ayaa sheegay inuu ka tagay dalalka Talyaaniga. Wadanka Talyaaniga ayaa maalmihii la soo dhaafay noqday dalalka ku yaala Yurub ee saameynta xun ku yeeshay caabuqa coronavirus, iyadoo 300 ku dhawaad ruux ku dhacay 11 qof ayaana u dhintay caabuqaasi. Hase ahaatee, dalalka deriska la ayaa sheegay in haddii ay xuduudaha ka xirtaan ay xaaladoodu noqon karto mid ka weyn sidii ay hadda tahay. Wasaaradda caafimaadka ee dalalka Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Midowga Yurub ayaa go'aan ka qaatay inay si wadajir ah ula dagaallamaan dhibaatadan kadib markii Talaadadii ay shir yeesheen. Caabuqa corona ayaa markii hore ahaa mid ku fiday dhanka waqooyi ee dalka Talyaaniga, balse wuxuu markii dambe uga sii gudbay qaybaha kale ee koonfurta iyo bartamaha wadankaasi. Warbixinta kale aan hayno waxaa ka mid ah wasiirkii qarinayay in coronavirus uu jiro oo isagii laga helay caabuqa. Wadanka UK, caruurta iskoolada ah ee xilliga fasaxa ku maqnaan jirtay Talyaaniga ayaa loo diray guryahooda, iyadoo ay dowladuna shuruuc cusub u sameysay dadka safarada aadaya ama ku soo laabanaya. Laakiin wasiirka caafimaadka Matt Hancock ayaa sheegay inuusan jirin qorshe lagu mamnuucayo duulimaadyada ka imaanaya dalka Talyaaniga. Qiyaastii 3 milyan oo Britain ayaa sanad kasta iskaga goosha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Haddii aad eegto Talyaaniga, waa ay joojiyeen dhammaan duulimaadyadii ugu iman jirtay dhinaca Shiinaha. Hadda waa dadka ugu saameynta xun uu ku yeeshay caabuqa corona ee guud ahaan qaaradda Yurub, ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee Ingiriiska. Maxaa ugu dambeeyay haddaba qaaradda Yurub ee warbixinada ku saabsan coronavirus-ka? Dalka Australia oo lamaanada yar oo reer Talyaani ayaa xaqiijiyay inay caabuqa qabaan. Saraakiisha ayaa maanta oo Arbaca sheegay in 9 qof oo kale la geliyay karantiil kadib markii laga helay cudurka. Switzerland, mas'uuliyiintu waxay sheegeen in cudurka laga helay nin 70 jir ah oo ku sugan magaalada Ticino ee xadka la wadaagta Talyaaniga. Ninkan ayaa 15 bishii February cudurka ka soo qaaday magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Nin ku sugan dalka Croatia oo dhawaan ku soo laabtay dalka Talyaaniga ayaa noqday qofkii ugu horeysay ee lagu xaqiijiyay dalkaasi. Jasiirad ku taal Spain oo lagu magacaabo Tenerife ayaa ruux ayaa lagu xiray hotel ay ku sugnaayeen kadib markii dhakhtar Talyaani iyo xaaskiisa laga helay cudurka. Spain sidoo kale kiiskii ugu horeeyay caabuqa coronavirus ayaa laga tabiyay gudaha wadanka. Qofka cudurka laga helay waa haweeney ku sugan magaalada Barcelona oo dhawaan ka soo laabatay waqooyiga Talyaaniga. Gariiga ayaa xaqiijiyay kiiskii ugu horeeyay caabuqan, waxaana laga helay haweeney 38 jir ah kaasoo noqotay safar ay dhawaan ku noqotay wadanka Talyaaniga sida ay wararku sheegayaan. Faransiiska iyo Jarmalka ayaa soo tabiyay kiisas cusub oo caabuqa coronavirus-ka, waxaana laga helay dad ka soo laabtay safar ay ku tageen waqooyiga Talyaaniga. Faransiiska ayaa sidoo kale shaaciyay dhimashadiisii ugu horeysay ee ka dhalatay caabuqan kadib markii 80 jir dalxiis Shiineys ah horaantii bishan ku dhintay gudaha dalkaasi. Muxuu yahay haddaba sawirka guud ee caalamka? Maanta oo Arbaca, hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ilaa hadda dad gaaraya 8,980 ruux ka dhacay caabuqan, waxaana ugu badan dadkaasi dadka Shiineyska ah. Saraakiisha dalka Iran ayaa sheegay in 19 qof ay dalkaasi ugu dhinteen caabuqa corona, halka 139 qof oo kalena uu ku dhacay. Waxaa si weyn loo rumaysan yahay in saameynta cudurkan ku yeeshay dalka Iran ay intaas ka badan tahay. Walaaca ayaa sii xoogaysay kadib markii caabuqu ku dhacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dalka Iran. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa muuqaal lagu arkay isagoo indhihiisa masaxaya aadna u dhididaya. Madaxweyne Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay inuusan jirin qorshe shuruuc karantiil ah loogu rogayo magaalooyinka iyo gobollo ka tirsan dalkaas Iran, laakiin wuxuu sheegay in qofkii lagu arko calaamadaha muujinaya cudurka si gaar ah loo karantiili doono. Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Arbaca tabisay in 115 kiis oo cusub laga helay dalkeeda. Tirada guud ee dadka laga helay caabuqa corona ee dalkaasi ayaa gaaraya 1261 ruux,
11 kale ayaana dalka gudihiisa uga dhimatay waxaana dalka ugu saameynta ugu weyn u geystay marka laga soo tago Shiinaha.